بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soomaaliyeed meel walba oo joogto salaamaya. Waxa waaye horta mar walba waxa isdhahaa barnaamijyadan hadalka waxa waaye adigu barnaamijka talantigaaga waxa waaye fan iyo hees oo intaa ku eko wax soo hadlin laakiin waxyaabo badan oo waxa jiro aad maxaan kugu qasbay inaad soo hadashid oo kugu kalifaayo waxa waaye wixii ay dadku u jeedaan oo muuqdo ee arkaan oo ayagu maxaa la yiraahdaa fasirnayaan waa gooni laakiin waxa hoose oo anaga shakhsi aan dhalinyarana heesto cid la socota barahan ama og ama ka fanaaniin xaqiiqda markii laga hadlayo fanaaniinta Soomaaliyeed waliba kuwa dalka ku sugan oo dalka joogo waxa waa intooda badan gumeysiga macnaha qaab darbiga ku jiraan ha noqdaan qaar fiidiyoyo laga haayo kuwa ma aragtay qolobta ka jirno oo maxaa la telefoon ugu gumeysto kuwa dad loo soo adeegsado ma aragtay oo dad ma aragtay Soomaaliya dadka joogana waxa waa xaqiiqda markii laga hadlo $20 qofka dad soo dhiibtay ku soo adeegsato qofkaas aadadid dad ay ka soo roodaa jiro oo ku soo aadayo waxa waa muhiimada aan rabay inaan ka hadlo waxay tahay horta barnaamijkeena oo socday oo bilow ilaa dhamaad oo waxa waaye YouTube ku saabsanaa YouTube-kii gacan inuu galo YouTube-kii inuu soo noqdo inaan raali gelin soo bixiyo inaan hadana wax ka soo jafo waxa soo dhan xaqiiq dhab oo guud ahaan hadana naga maayo waxa dhabto hadda taagan markii laga soo tago qadartii dhacday iyo maxaa la yiraahdaa tacsidii oo nagashay iyo xabsigii markii laga soo tago waxa waaye horta nina qalad nagu soo maagay anaga oo qaladka markuu nagu soo maagay maxaa la yiraahdaa anoo iska joogo Djibouti aqoonna aan u lahayn waxbana aysan naga dhaxaynin waxaan arkay nin iga soo hadlayo aniga maxaa la yiraahdaa oo bilaa macna dara been u jeedo oo cad ka hadlayo ninka waa marmar waa arki jiray maxaa la yiraahdaa laakiin kuma xirneen aniga nin oo social media ku jiro oo yahay qabyaalada iyo siyaasadda ka hadlay waxyaabo noocaas inuu yahay arki jiray marka arrimo iga waaweyn inay wax soo maleey jiro kulay dawlad iyo wax is afansan yihiin iyo waxyaabo dad isqabteen inuu ka hadli jiray waxaas u maleey jiray laakiin kama dambeys waxa ogaadeen in iska midtac ah oo iska hadlo oo siyaasad xataa aan waxba ka aqoonin dawlad aan waxba ka aqoonin qabiil aan waxba ka aqoonin because ilaa hadda qabiilku uu yahay iyo qoladu uu yahay ama aqoon u maleey mana maleenayo dadku uu sheeganayo inuu ka dhashay because qofka waxa waaye dadku uu sheeganayo dad wax cisto oo dad macnaha maxaa la yiraahdaa qabiil Soomaalida kamid ah oo la yaqaano oo magac ku leh oo dad ka dhashay oo siyaasiyiin leh oo dhalinyaro leh oo fanaaniin leh oo wax walba leh waayo oo waxa way qofkan haduu qaldan yahay qabsan karo laakiin aniga hadda waxa aaminsanahay shakhsigaas asiga ah waa magaciisa qaadin oo Soomaaliya oo dhan ay wada ogtahay YouTube-kayga hadda kor gacanta u gali jiray waxa way in uusan qolaba lahayn qof qol cid oo ka dhashay ama loogu dacwado uusan lahayn xaqiiqda markii aan ka hadlaayo horta aniga cid aan ka baqaayo oo Ilaahay ma jirto maxaa daraadno waxa igu kalifay in aan aniga inta soo fariisto oo aan live inta soo galay YouTube aan soo dhaw maxaa la yiraahdaa apa social media tahay maxaa la waa ka baqaaya kana waa ka saaraya waxa aniga waxa soo wacay nin dhalinyaro ah oo YouTube-kayga hayo oo walaalkay adeer darajo oo Kenya degan oo meeshaas joogo waxa waaye oo dad is aamin aan ahayn YouTube-kayga asoo 8 ku maraya u dhiibay adeer darajo oo aan waxba ahayn waxna aan ka jirin waxa way gacanta ku soo qabtay copyright igu sameeyay waxa waa content waxyaabo badan oo igu sameeyay YouTube-kayga waxa way heesaygu ii xiri jiray waxa way account igu xiray YouTube-kayga lacag inaan ka sameeyo heer ah oo gaarsiiyay wax walbo si walaalnimo iyo kalsooni ay nooga dhaxayso oo isla marnay waxa waaye qof aaminay aan nafteed aan ku aaminay waxa wixii uu soo diri jiray wax walba uu sameyn jiray okay ninkaas aniga saaxiibkayga maanta hadii uu gacan uu galo ama gacan bil aadan ama qof uu gacanta ku dhigo waa ku qasbanahay in YouTube muhiim ma ahan naftiisa ay muhiim ah Soomaali Maxamed ha ogaato ama ka dhaadhacdo aniga ku adkaysi waan ku adkaysan karay ninkaas markaan lahaa 48 saac wada kaaga saaray markuu ilaaha aan lahaa wax aan xaniyahaaga fuul waxa iga qaadi kartid malahan anoo Muqdisho dhac joogo oo aan cidna ka baqaynin oo aan isdheyn qabiil aan aaminsaneen oo kan yahay daarood iyo fidri ka dhac iyo qabiil iyo inta ku jirta iyo waxaas igu jirin xaniyahayga nimadeeda anoo kalsooni kale aan deeyay cidna aan deeyay ama cidaas ka dhicinaysa igu jirin ama qofna u soo marin rabina nimadeeda xaniyahayga aan ku hadlay inuu soo waxba iga qaadi karna ogaa because fanaaniinta Muqdisho boqolkiiba 99 gacanta ugu jiraan nooca gacanta ugu jirna aniga ma ahaan ma fahamtay oo ugu soo qaldamay Djibouti ka soo bilaabo iga soo daba dhigtay waan ka aamusay shibanka ere waxyaabo badan oo ka hadlay Djibouti uu jooga gaaja ku dishay kan uu ka hadlay waxyaabahaas uu ka hadlay waa ka aamusay ilaa Muqdisho imaaday waxa waaye wuxuu ilaahay farmaajo iyo maxaa uga soo hadashay
arrintii haddana shabaaka eri wuxuu yiri show kama qayb geli kartid macnaa salka ii saare wax igu kalifay marka anoo oo aan ninka aan u naageenin aan ka baqin oo aan video u igahaynin oo waxbana igu sameeyeen wax igu kalifay inaan dhaho aniga habeenada kamid ah anoo garow jooga wax soo wacay deeq darajo soo wacay wuxuu igu yiri ninaaga shit wuxuu igu yiri ninaa bas koolay waa ilaa waxa soo wacday gabadh maskiin ah waxay u tiri gacan ugu jirnaa ninkaas gacan ugu jirnaa adiga dartaada naloo haystaa bas aniga awoodeedu waxay noqotay ninkii inaan waco aan dhahorniyo aniga adiga naga dhaxaysaa dagaalkan waxaane maxaa ku haysataa dhalinyaradaas oo waxa waay wuxuu u adeegsaday nin laga baqo oo rasiid nuur loo markii aan ka daba tagay aan dhahay war ka baqin waxba idinku ma sameyn karo waxa la itaha Axmed Rasiid aan dhahay waxa la itusay video ninkaas oo dad dilaayo oo dhalinyar Soomaaliyeed dilaayo laamiga dhexdiisa ku dilaayo videogaas markii aan arkay ninka saaxiibkayga waa u baqaanay waa u baqay bis ninkii markaa waxa wuxuu igu yiri live soo gal way bari fade waa bariye ninkii markaan bariye waxa waxa la ii sheegay ninka saaxiibkayga ahaa in la sii daayo deeq darajo markii la sii daayo waxa ku yiri saaxiib ka soo tag meeshaas waxa imaw jimeelkayga ninkii gacantiisa soo gale intii ma ku ere waxa deeq darajo ka soo tagay ilaahay deeq darajo familkiisa meeshii iyo gurigiisa iyo wixiisa iyo noloshiisa oo ka soo carro oo anigu xabsi ku jiro oo garowe ila imaado waxa Soomaali wax ma fahansanin deeq darajo ku qayaani waxyaabo noocaas ka hadlaaya marka hadda waxay taageertaa waxay ugu kalifay inaan soo hadlo waxa waay ninkii maxaa la yiraahdaa hadii YouTube-kii basweerkii wixii oo dhan gacanta ku haystaa inta ka baqaay ma laha gacanteedina ay ugu jiraan waxa waay maanta kalsooni iyo khibrad aan u leeyahay Soomaali ugu aamintay aan YouTube la soo fariistay qofna ma bari jirin xaniyay igu jiray Soomaali isku barin wali igu jiraa waxa waay daciif waay nin rag ma ah meelaha hoos ka soo hadla meelo hadeerta wax ugu kalifaa waxay tahay codkii dad waxaa jiro oo dad waaweyn oo arrinka inay ogaadaan rabaan dad asxaabta kamid ah oo codad aan markii aan ka qabanayno iyo ana la wadaag ana diray waxa dad u diray waxa inay ogaadaan ada codadkii la soo dhigay YouTube marka ma soo heshiina ninkaasi aniga YouTube-kayga iguma soo celinaysiis ay heshiinay YouTube-kayga xaniyay marka hore la iga qaaday la igu soo celiyay habeenada kamid ah anoo deeq isla joogna deeq telefoon ku hadlaaya arkay oo ninkaas Axmed Rasiid Allah ka hadlay oo Axmed Rasiid ka telefoonka ka qaadnay deeq waxaan ku iray saaxiib adaanikaas ninka la yiraahdo Axmed Rasiid u galiyay gacanta YouTube-kayga waxa waay hadeertaan adaanikaas saas waxa la yiraahdaa iiga heelay waxna igama qaadi lahayn YouTube cusubaan aniga hadda sameystay YouTube kaasna waxa waay uma baahni laakiin xaqiiqada jirto waa ka soo hadlaya baa ku yiri asoo sharaftiisa dhoorayo oo ka baqaayo Soomaali Maxamed sharaftiisa uga baqaayo Axmed Rasiid oo YouTube-kayga ii soo celi intuu wacay anoo aan la baryo tamin aan wicin oo soo galay qadka ninka la yiraahdo heblaay hebelka caliso markuu soo galay wuxuu yiri iyo kuugu wareejiya sidii YouTube-kayga ugu wareejistay maxaa la yiraahdaa oo aan deeq darajo basweerkii wixii hadda ii bedelay bas marka si walaalnimo oo iiga codsado yiri maxaa la yiraahdaa ii soo gal YouTube waa ku bariya ii sheeg bas ina YouTube-kaaga kuugu wareejinay aan bas aniga sheekada meesha ku ekaatay wax walba aan islahaa sidii aan dhacday bas hadeertaan ala kulli xal muhiimad soo fariisa waxay tahay waan inuu tusayaa baqashada lambarkiisana waa taqaanaan wuxuu soo diray waxa waaye xayaat ka jiro wacaya wuxuu leeyahay waxyaabo oo maxaa la yiraahdaa waa ku qaabinaya video waa ka duubaya kan uu duubaya meelaha hoose ee meesha ninka rag laga marin oo naga soo maraya ma fahanti Soomaali Maxamed waxa uu sheegaya aniga horta cid aan ka baqaay ma laha YouTube-ka maanta haduu hawada ka baxo فيديو يوتيوب waxa uga baanay malahan waxa waan noolahay dad baa ka dhashay Soomaali Maxamed aan ka dhashay 20 jir ahay mar walba jaanis ah haysta aniga laakiin waxa inii sheegaya dhalinyarada Soomaaliyeed waliba fanka dhalinyarada fanaaniinta in ay gumeesi ku jiraan intooda badan gumeesi idinku waxay idin soo gudbiyaan farxada idin la wadaagaan heesa idin soo gudbiyaan laakiin xaqiiqada marka idin kala hadlo dhalinyarada gumeesi intooda badan ku jiraan waa loo caag jugleeyaa qaarkood video waa laga haayaa qaarkood wax walba lagu sameeyaa qaarkood dad loo adeegsadaa raga loo adeegsadaa
ninkiina ilaa ay hadeertaan waxaa dadku daba taagan yihiin ee sheegaan waxay tahay muxuu idin daba taagan yahay sharma muxuu uga soo hadlay dadku waxay isleeyihiin hadeer sharci sheekadan weeb aamustee muxuu sharma iyo haddana uga soo hadlay waxaa waaye wax uga soo hadlaya dadku kala feeso naagu dhalay weli cagto noo saaraya waxaa waaye haddana annaga nama soo aadi karo oo nimadiisa annaga naguma soo aadayo nooguma caga jugleenayo meelo hoose iyo gabdhihii iyo xaafadihii iyo familkii nagala maraaya dagaalo daciifeed cidiyaa hoosteedu nagala diraaya waxaa inii sheegaa aniga hadeertaan deeq darajo walaalkayga waa isla joognaa waxaa waaye ilaa iyo meel maxaa waaye ilaa iyo familkiis u baqaan heerkaasuu maraaya oo la yiraahdaa maxaa la yiraahdaa intaa loo idin diraaya oo aniga xataa la idhaa waa intaa lagu diraya waxaa waaye annagoo dalkeena joogno oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo dalkeena joogno oo annagoo dalkeena joogno dhibaatada jirto dalkeena la ogyahay horumar ku sameeyno dad haddana xagga joogo oo qurbahaas ku nool oo nabad ku nool oo free ku nool waxay nagula dhaqmayaan waxyaabo ayna u dulqaadan karin fanaaniinta Soomaaliyeed qaarkood inta badan hore ugu soo dulqaateen waxa idin sheegay aniga qof bini aadan aan ka baqaayo ma jiro ciilka iyo ilintan waxa ay keenayo waxay tahay aniga haddii aan adkaysto oo ninnimadeeda aan ku adkaysto oo wuxuu yahay aatus waxaa waa meel aan ka damqanayo rag ama dhalinyaro ama gabdho iyo dumar iyo xaggooda naga soo maraya iyo meel aanan maxaa la yiraahdaa dad aan hadhoon eed aniga tusanayo koraysa oo dartiina wax walba noo gaaraan leey Soomaali Maxamed aniga waxaan rabaa in ay ogaato dib زائد فنانين Soomaaliyeed aniga u hadlay afka fanaaniintu ku hadlay waliba kuwa dalka ku sugan dhibaato زائد naga heesato xagaan iyo maxaa la yiraahdaa dadkan ku sugan dhankaas maxaa la yiraahdaa qurbaha hadalka aan ku dheeraanaynin Soomaali Maxamed waxa waaye waa ka raali gelinayaa xanaaqi iyo kuleelka iyo hadalka aan ku hadlay waxa waaye arinka ina ogaataan arinkaas meesha uu marayo ninkaana uusan naga dabaharin agta uu noo saaray haddana waxa ka sii ciisoonaya waxay tahay afka uu ku hadlay xaniisa maaha ninnimadiisa maaha raganimadiisa maaha mar walbo aan ninkaas ina ka hortaga aadamco waxa ay soo hor istaagayo Ahmed Rashid waxa soo hor istaagay Ahmed Rashid ninka nooyilay ninka dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay uga baqaysa ma aqaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan ay ka wada kaadanayso ninkaas oo naga soo maray ninkaas markuu awoodi waayo deeq darajo cilmi kuma dhamo wallahi oo billahi oo talaa xabad cilmi ah oo intaas dhigin isku dhameen awood waxa u yeelan in YouTube-kiisa ahwada ka saarno oo naga soo weerarayo oo awood u yeesay deeq darajo oo ka daba tagay waxba uu naga qaadi waa asiga ilmaha xunka uu wato asiga waxa basabeeyo xaniima qol meeshaas ugu jira dada waxay ugu yeelayaan afaar qabiilka marka qof ugu yeelayso waa qabiilkaaga marka lagu qaldamo qofka qabiil loogu yeelaya laakiin inaan qabiil lahayn qabiil wax oogeen raganimo aan lahayn Soomaalinimo aan ku jirin oo waxba aan tareenin afkaas uu faaq ka haayo oo isku diraahla qabiil ugu yeelaysaan waxa waaye waxa loo danqadaa qofka qabiil wax ka yaqaan qabiil oo waxba ka aqoonin naragu waxba ka aqoonin heerus waxba ka aqoonin waxa waaye dhalinyarada Soomaaliyeed waxba ka aqoonin ninkaas noo jabiyay oo la yiraahdo Ahmed Rashid gacanta noo galiyay waxa haddana uma jabin oo macnaha waxa la oynaa aan la cishoona ma YouTube-keegi in macnaha gacanta uu ku heesto ama wali la xukum YouTube-keegi ana gacanta ku heesto xitaa deeq darajo gacanta kuma hayo akoontigeega ana gacanta ku heesto YouTube-keegi ana gacanta ku heesto waxa ana gacanta ku heesto laakiin wali aga jugleen iyo dadkii deeq darajo ilaa hadda waxa way uu ka soo tagay noloshiisii wixii u socdo horumarkiisii meeshu joogo ka soo tagay waxa way xayaat kaajal ayaduna sidoo kale gabadha way ka soo tagtay waxa xamar ay ku sugan tahay oo soo daba tago waxa way dabadu hadal u qabtay wuxuu dadku ugu booteenayeen waxay tahay oo dadku uga baqayaan dhalinyaro Soomaaliyeed fanaaniin Soomaaliyeed dad fara badan oo hadda magacyadooda inta ka soo qaadeen oo hore wax ugu geystay oo fiidiyoyo ku saystay inta badan ninkaas dumarku wax ku sameeyaa rag wax kuma sameeyo ragna wax kama yaqaano waxaan aaminsanahay inay waliba rag is arkin haddii rag is arki lahaayeen ama maanta uu Soomaaliya joogi lahaa waxa waay ninnimadiisa la tusi lahaa waxa uu asiga yahay buu arki lahaa Soomaali Maxamed waxa ogaataan
ninkaas inuu dhib nagu haayo dhalinyarada Soomaaliyeed inuu dhib ku haayo ma fahanteen waxa waaye anigu inta hadalkaas wax usoo gudbinayay oo muhiimadu ay tahay waxa waaye oo raaligelinta aan dhawid bixiyay ama baryada aan baryahay ma ahan wax aniga asiga ka baqay ama cilmi uu iga badiyay ee deeq daraja baskoolad madax looga haaya xaniyo gurigiisa loogu tagaa ku yaray ma fahanteen si familkiisa loo tagay waa la soo waxay marka aniga awood kale oo furneed ma lahan wada kale oo sameeyaa in ninkaas tawaco aan bariyo oo video soo duubi dhaho aan video u soo duubo wada ahayn ma lahan markii tii ay dhacday isla subax qadar ay qabsatay oo xabsiga gale oo taasiya ay gashay ninkii ilaa hadda uu dib taagay alaa kula hadalka waxa ku soo xiraaya muhiimadu ay tahay waxay tahay ninkaas asiga ah inuu weli cagto oo noo saaran yahay oo na dabahaayo waxa waaye anigana ma aan shaqsi u dabahaayo waxa waaye ninka deeq daraja oo dhalinyarada walaalkayga ah iyo waxa waaye bahalkii maxaa yiraahdaa teeda anoo dhan family waa ka dhalanay qofka familkiisa anoo maxaa dadku isdhaana laga yaabo dadkan maxaa yiraahdaa familiadood ma meesan waxba qaban karin oo ninkaas yaa horta family wax qaban kara family qofka markuu familkiisa la ogaayay meeshu ka soo jeedo ninkan familkiisa lama ogo wuxuu yahay kama soo jeego qabiil uu sheegtaa qabiilku uu sheegto wuu sheegtay aniga hadda qolada raba sheegan karaa laakiin dadka aan ka dhashay waan dhex joogaa waa kuwaana ayaga ka dhashay waa sheegay waan ku faana waa ka dhashay Soomaali Maxamed guud ahaan uga dhashay laakiin qaasatan ma jarteena ka soo jeeda qabiilkan in la isku barto waa muhiim maahan qabyaaladu qulubta ma ahan ma fahanteen laakiin muhiimadu waxay tahay ninka meel loo raacdo ma lahan oday cista ma lahan nabadoon looga dacwado ma lahan dad loo mara ma lahan wuxuu yahay ma lahan saasay tahay dad ugu sii heelinaya qabyaalada iyo Soomaalinimada iyo qabiilkaba waxba ka aqoolin marka waxa uu sheegayaa Soomaali Maxamed arinka inay saa u ogaato videoga wax igu soo kalifanay arinkaas ahayd waan islaamiya kuma sii dheeraan karo waxa waaye hadii hadalka inta ka badan ku sii dheeraadana hadal iga tagayo Soomaali Maxamed salaamu calaykum waan islaamaya goodbye